السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة سودة واضح آدي هذا ومهد سنتهين maanta waa jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kastoo aad ku jimcaysateen waana 8 bisha 12 ee November sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago madaxweyne Trump oo haddana mar kale weeraray Soomaalida Minnesota gudoomiyaha gobolkaasi Ilhaan Cumar iyo waliba dalkeena Soomaaliya waxa uu yiri Soomaalida Mareykanka maba keenayna ma soo qaadayno kuwa joogana dib ayaan isaga celinayna maxaa yeelay dhibaato mooyaane wax kala ma aysan nagu soo kordhin iyo sidoo kalena dadka ka imaanaya 19 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto wadamada dabaqada saddexaad oo Trump sheegay in aysan dadka qaadan doonin sidoo kalena waxa uu sheegay in dadka soo galootiga ah Mareykanka ku nool ay sii kordhayaan tirakoobka sida uu muujiyay lacag fara badanna ay naga qaataan ayuu yiri marka maba ahan uu yiri inaan dad kale Mareykanka aan keeno arrimahaasi oo idil ayaan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaad madaxweyne Donald Trump xalay isagoo ka hadlayay qasrigiisa Mar-a-Lago lana hadlayay ciidamada Mareykanka guud ahaan meel kasta oo ay joogaan oo sida caadada ah madaxweynaha Mareykanka sanad kasta marka la gaaro 27 bisha November oo maalinta Thanksgiving-ka waxa uu la hadlaa ciidamada Mareykanka meel kasta oo ay joogaan oo qaab maqal iyo muuqaal ah oo kula hadla kad markaasi oo u mahad celiyaa in sida wadanka ay u difaacayaan danihiisa meel kasta oo ay joogaan markii uu hadalkii ciidamada dhameystay ayaa su'aalo la weydiiyay madaxweynaha su'aalihii la weydiinayay ayaa waxa ku jirtay in arintii ka dhacday Washington arbacadii oo labadii askari inta lagu dhaawacay mid ay maalnimadii shalahayd u geeriyootay arrimaha Soomaalida waa kii ku soo lifaaqay marka ninkaasi Afghanistan ka yimid oo xitaa Mareykanka CIA-da la shaqeyn jiro Mareykanku ay tababareen dhaawac u geystay Trump waxa uu yiri Biden dadka Afgaaniyiinta uu iska soo qaaday ayuu yiri iyadoo aan wax baaritaan ah lagu sameeynin sawirkan ayuu soo qaatay idin muuqdo diyaaradaha militariga Mareykanka dadku iyagoo sagxadda diyaaradda dhooban waxa uu yiri wax baaritaan ma aysan jirin dadkan madambiilayaal maxay yihiin waa la iska soo xaabiyay diyaarad ayaa lagu soo xaaqo yiri marka sidaas darteed Mareykanku waxaan ognahay markii uu ka soo baxayay Afghanistan 76,000 oo Afgaaniyiin oo kuwa Mareykanka la shaqeynay iyo familadoodii ayaa la soo qaaday sanadkii 2021 dadkaasi waxa ku jiray 3,300 oo dawladda la shaqeynayay waa Mareykanka oo ama turjubaano u ama ciidamada si gaar ah ula shaqeynayay special immigrant visa ayaana lagu keenay dadkaasi ninkan ayaa kamid ah hadda Raxmanullaahi Lakalwaan la yiraahdo oo labadaasi askari dhaawac u geystay markii dambe ay mid u geeriyootay marka hadda dadka Afghanistan ee Mareykanka ku sugan green card-kooda dhamaanba dib ayaa loogu laabanaya xitaa waxa la weydiiyay dad oo si sharciya ku jooga ayaa jira wadanka maxaad ka sameynaysaa waxa uu yiri dad fiicanna waa ay ku jiraan laakiin iyaga nafsadahantoodu ma faraxsanaan doonaan wuxuu muuqataa marka in hadda dadka Afgaaniyiinta iyo Soomaalida uu ku soo lifaaqay marka wariye ayaa waxa weydiiyay maxaa iska galay Soomaalida iyo ninkan Afghanistan ah ee labada askari dhibaatada u geystay caasimadda wadanka Mareykanka ee Washington DC Trump hadda muxuu ku jawaabay marka Trump wuxuu yiri waxba iska magalin ninkan Afghanistanka iyo Soomaalida laakiin wuxuu yiri Soomaalida Minnesota ay la wareegeen wuxuu yiri dhibaato fara badan oo gangis ay kamid tahay ayay ku hayaan gobolka Minnesota waxa uu sidoo kale aflagaadeeyay gudoomiyaha gobolkaasi Tim Walz uu yiri gudoomiye u qalmay inuu xilkaasi hayo maahan waa uu ku guul daraystay marka waxa la yiri maxaa iska qusay marka Soomaalida iyo ninkan Afghanistanka ah marka wuxuu waxba iska ma quseeyaan laakiin Soomaalida waxay sabeen uu dhibaato fara badan lacag fara badanna waa ay naga qaadanayaan wadankoodii ayayna dib ugu dirayaan marka waxa uu ka wadaa lacagta Soomaalidu bil kasta ay dadkooda u diraan mas'aabtii la musuqmaasuqay ayuu ka wadaa ilaa hadda madaxweynuhu ma uusan kala cadeynin sidaas darteed markuu wuxuu yiri wada hel oo lacag intaas leeg aan Soomaalida u siinayna arintaasi waxa uu yiri ma ahan mid macquul ah sidoo kalena waxa uu sheegay arintan lacagta wuxuu yiri xeer aysan ba wali dad aysan horay u arkin ayaa lacagahaasi ay Soomaalidu u qaadanayaan marka sida muuqato waxa uu la jeedaa lacagihii malaayiinta dollarada ee Soomaalidu ay musuqmaasuqeen sida haddana wuxuu yiri Ilhaan Cumar oo mar kala galay wuxuu yiri waxaan hay joogto Ilhaan Cumar oo iyadu aan waxba qaban oo kaliya waxay qabato waxay tahay inay ka cabato wadankeena iyo dastuurkeena waxa sidoo kale uu sheegay in ay ka timid wadan aan gabi ahaan ba jirin ba wadan aan jirin ay ka timid taran waxaan u nahay 2 isbuuc ka hor
markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay 15 wadan oo Soomaaliya ay kamid tahay oo markii loo codeynayay in qaraarkii xasilinta Gaza iyo sidii ciidamo loogu diri lahaa 13 wadan oo u codeeyay Soomaaliya ayaa kamid ahayd wuuna u soo mahad celiyay bartiisa True Social ayuu ku soo qoray haddana wuxuu leeyahay waxay ka timid wadan aanba jirinba ay ilhaan ka timid annagana waxay markasta ka cabanaysaa wadankeena iyo dastuurkeena wadankaasi waxa uu yiri Soomaaliya waa wadan burbursan isla markaana dambi ka batay isaga dan sharaf dareystay waxana uu sheegay in hadda dadkooda mar dambe ma qaadan doono dadka Soomaaliya ka yimid mar dambe maba keeni doono sida muuqata Trump waxa uu leeyahay Soomaali dambe Mareykanka ma keeni doono waxa uu yiri kuwa joogana waad iska celin doonaa wadankoodii ayaan ku celin doonaa maxaa yeelay waxaan dhibaato ahayn ma aysan ugu soo kordhin Soomaalida ayuu leeyahay kulay Soomaalida sharciga haysato ma celin karo oo dhalashada qaadatay in la kuwa green card ka haysto dib u eegis ayaa hadda lagu sameynaya dhammaan qaxootiga 4 sano oo Biden joogay yimid iyo sidoo kalena dadka wadanka sharci darada ku soo galay waa uu celin karaa laakiin dadka muwaadiniinta ma celin karo marka Trump waxa uu si cad u yiri Soomaali dambe ma qaadanayno kuwa hadda joogana waan iska celinayna macnaha waxa uu la jeedaa kuwa wadanka sharci darada ku soo galay kulay sida muuqata bal Trump oo arrimahaasi ka hadlayay wax yar ila daawada If you look at Somalia they're taking over Minnesota and we got a lot of problems with the gangs, with all of the things taking place in Minnesota. We have an incompetent governor, We have a dope governor. Nothing but Somalians have caused a lot of trouble. They're ripping us off for a lot of money. There's a tremendous amount of money going back to Somalia. What the hell are we paying money to Somalia for? But they're ripping off our country at a level that few people have been able to see before. That's about the only thing. You talk about competence. We have Ilhan Omar, who does nothing but complain about our country and our Constitution. And she comes from a country with practically no country. It's devastated, it's crime-ridden, it's a mess, it's a disgrace. And we took their people at a tremendous... We're not taking their people anymore. We're not taking their people. And we're getting a lot of their people out because they're nothing but trouble. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu qorsheynayaa in Mareykanka laga mamnuuco inay yimaadaan dad ka socda wadamo ku dhawaad 20 wadan ah oo yiri wadamada dabaqada saddexaad Soomaali waa ay ku jirtaa marka wadamadaasi waxa kamid ah Afghanistan, Burundi, Chad, Republic of Congo, Cuba, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Laos, Libya, Myanmar, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Turkmenistan, Venezuela iyo Yemen waxa uu yiri dadka wadamadaasi nooga imaanayo oo soo galooti ahaan Mareykanka ku imaanaya ama qaxooti ahaan ba ahaadane gabi ahaan ba wuxuu yiri waan iska joojinaynaa marka Trump bartiisa True Social-ka ayaa qoraalkan ku soo qoray wuxuu leeyahay waxaan si joogto ah aan u joojinayaa ayuu yiri dadka wadamada dabaqada saddexaad ka imaanaya oo loo ogolaanayo in ay Mareykanka ay soo galaan arintaasi wuxuu yiri malaayiin qof oo Biden u ogolaaday isla markaana ma doonayna hadda inay dadkaasi wadamada dabaqada saddexaad ka imaanaya ay noo yimaadaan wuxuu leeyahay waan masaafurinaynaa dhammaanba ay ajnabiga wadankeena jooga isla markaana qatar ku ah ammaankeena marka waxa uu yiri kuwaasi oo xitaa la jaan qaadi karin kuraha ilbaxnimada reer galbeedka aan la jaan qaadi karin waan iska celinaynaa ayuu yiri marka wuxuu yiri wadanka waan ka saareynaa hadii aadan u qalmin in aad wadankeena aad jeclaanayso wadanka waan ka celinaynaa marka ninka Afghanistan ka ayuu ula jeedaa kulay wadan kastana waa ay qusaynaysaa marka Trump wuxuu leeyahay hadii aadan wadankeena amaankiisa aad qatar ku tahay isla markaana ilbaxnimada reer galbeedka aadan la jaan qaadi karin waan ku celinaynaa Trump sidoo kale qoraal dheer oo bartiisa True Social uu xalay ku soo qoray ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay dadka in ajnabiga ah wadankeena waa ay ku soo badanayaan tirakoobkii ugu dambeeyay 53 milyan ayay noqdeen ayuu leeyahay wadamo waxayna ka imaanayaan guul daraystay sida xabsiyay ka soo baxayaan isbitaalada dadka waalan lagu hayay ka soo baxayaan gangis ayay yihiin sidoo kale daroogada ayay ka ganacsadaan sidaas darteed waxa lagu taageeray ayuu yiri lacagta dadka Mareykanka ee muwaadiniinta ay bixinayaan kuwaasi oo qalbigooda u furay laakiin wuxuu yiri iyagu waxa ay ugu bedeleen in dadka Mareykanka ay dhibaateeyaan waxa uu leeyahay
qoyska soo galootiga ah 30,000 ayaa la siiyaa oo dawladdu ay siisaa isla markaana haday green card leeyihiin ku dhawaad 50,000 ayay helaan oo dawladda Mareykanku ay ku caawisaa qoysaskaasi sidaas darteed wuxuu leeyahay populationkooda ama shacabkooda aad ayuu sare ugu maraya sidaas darteed waxay dhibaato ku hayaan ayuu leeyahay isbitaaladeenii magaalooyinka guryihii ayaa sidoo kale guri yaraan ayaa jirta marka waxa uu leeyahay waa dadkaas inaan iska celina hadda sidoo kale waxa uu soo qaadanaya 100,000 oo Soomaali oo qaxooti ah ayaa waxa uu yiri waxay hadda la wareegeen gobolka Minnesota sida gangis ayay noqdeen ayuu leeyahay oo dadkii gobolkaasi deganaa ayay dhibaato fara badan ku hayaan ay dilayaan marka Trump dadkii Minnesota mar kale waa uu galay gudoomiyaha gobolka Tim Walz sidoo kale waa kan caynaya oo dhahaya ma awoodo inuu xilkaasi sii hayo ama waa uu cabsanaya kulaha isaga nafsadaantiisa ayaaba Soomaalida ka cabanayo Ilhaan Cumar ayuu ku galay sidoo kale bartiisa mar kale Ilhaan waxay ku noqotay ninkan qarow nightmare ayay ku noqotay waxaan filayaa habeenkii hadii camera lagu xiro qolka uu seexdo isagoo Ilhaan ku qarweeya in la arko marka waxa uu caynaya sidoo kale Ilhaan xitaa xijaabkeeda ayuu hadda wax ka sheegay waxaana sidoo kale uu leeyahay in walaalkeed ay ku keentay inay qabto arrimaha lagu dacayadeeyay arintaas hadii ay jirto mar hore ayuu immigration ka dhehela baaritaan hal lagu sameeyo marka waxay ka cabanaysaa dastuurkeena iyo wadankeena iyo markasta ka cabanaysaa ayuu leeyahay wadankeedana xitaa si xun ayaa loogala dhaqmaa ayuu leeyahay Soomaaliya waa kan mar kale caynayo oo dhahaya military kama jiro dawladii kama jirto booliis kama jiro iskuulo kama jiraan iyo wixii lamid ah marka Trump markasta Soomaalidii Ilhaan ayuu dul saaran yahay iyo waliba dalkeena Soomaaliya hadii uu qaraar soo qorayo hadii uu hadlayo markasta waxa uu maalaysaa inuu ku dhadhabayba Soomaalida Ilhaan iyo sidoo kalena Soomaalida Mareykanka joogtay dalkeena Soomaaliya uu leeyahay waxba kama jiraan marna waa u mahad celinaya wuxuu leeyahay golaha amaanka waa ay kamid yihiin waa kuwii qaraarkii u codayay 2 toddobaad ka hor marka ninkii Trump aha sidaas ayuu leeyahay waa kii qaxootigii dib ha loogu laabtay yiri interviewha laga qaado dadka green card ka haysto dhan waa kii ku amray waaxdiisa immigration-ka in dib u qiimeyn lagu sameeyo dhammaanba dadka green card ka haysta ama qaxootiha ku imaadaan ama wadanka sharci daraha ku soo galaan dib ha loogu laabto yiri arintaasi dadka green card ka haysta dhamaantoodba dib u qiimeyn ha lagu sameeyo marka 3 maalmood oo la soo dhaafay Trump immigration-ka ayuu si aad uga hadlaya waliba Soomaalida ayuuna dusha ka saaran yahay sida muuqato waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha asxaabay aad iyo aad u mahadsantiin intaan mar kale